gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa howlwadeenada garsoorka uga digay in ay ku milmaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee doorashooyinka dalka Jamhuuriyadda Somaliland. wareegto maanta ay taariikhdu tahay 25 bisha 2021 uu soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare ee ahna gudoomiyaha gudida cadaaladda Jamhuuriyadda Somaliland Garyaqaanaadan Xaaji Cali Axmed ayaa waxa uu digay shaqaalaha maxkamadda sare inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee doorashooyinka dalka iyada uu ka reebayo sharciga iyo xeerka nidaamka garsoorku dhaqdhaqaaqa ololaha doorashooyinka deegaanka baarlamaanka iyo madaxtooyadaba. haddaba 16 bishan ayay ahayd markii gudoomiyaha maxkamadda sare uu wareegto uu ku socodsiiyay dhammaan gudoomiyaasha maxkamadaha rafcaanka iyo ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud iyo gobolada dalka si loogu wargeliyo reebanaanta ka qayb qaadashada dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee doorashooyinka. waxaana la socodsiiyay in cidda garsoorka ka mid ah ee danaynaysa inay ka qayb qaadato golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay shaqada dawladda iska casilaan 9 maalmood ka hor muddada doorashada, halka xubinta u hoggaansami weyda amarkaasina laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan.